haddii aad rabto luqadaha keyboardka ee Windows 10 inaad ku soo darsato luqad cusub waxaad soo furanaysaa qaybta settingska waxaadna ku soo furan kartaa adigoo isla qabanaya keyga window iyo I kadibna waxaad dooranaysaa optionkan ay ku qoran tahay time and language kadibna sidebarka waxaad ka dooranaysaa language markaad doorato waxaad qaybtan hoose ku arkaysaa luqadaha ku active garaysan si aad luqad cusub ugu soo darsato waxaad kali ku siinaysaa batoonkan ay add language ku qoran tahay kadib waxaa ku soo baxaya dhammaan luqadaha aad ku soo darsan karto luqadda aad rabto qaybtan searching ayaad ka raadin kartaa kadibna waxaad dooranaysaa luqadda aad rabto adigoo kali ku siinaya kadibna waxaad leedahay ama aad kali ku siinaysaa batoonkan ay next ku qoran tahay kadib wuxuu ku soo saarayaa featureska ay leedahay luqadda aad dooratay haddii featureskan mid ka mid ah aadan u baahnayn kaliya jeeg ayaad ka qaadaysaa kadibna waxaad leedahay install markaad tiraahdo saad u jeed wuxuu bilaabaya inuu luqadda ku soo download gareeyo markuu dhameeyo haddii aad keyboardka isla qabato keyga window iyo space waxaad arkaysaa luqadaha ku soo baxaya inay ku jirto luqadii aad gadaal kaga soo darsatay kadibna keyga windowga adigoo haya ayaad space ku soconaysaa si aad u doorato luqadda keyboardka